xabsiga shaqadiisa fiican baa u socota waxaa kale oo ayadana meesha ku jirtay guddi dhawaan la saaray oo arrimaha xabsiyada guud ahaan baarayay khaas ahaan dad la sheegay inay ka fakadeen xabsiga guddigaas shaqadooda way wadaan habeen iyo maalin ma seexanayaan ilaa ay ka gungaaraan arrintaas say u dhacday anagana xukuumad ahaan waxaan u qaadanay arrintaas inay tahay arrin khatarkeeda leh laga qaado tallaabadii ugu wanaagsaneed oo sharciga waafaqsan cid alla ciddii arrintaas haddii ay noqoto fududaysay mise ma ahe shaqadaas gudan weysay haddii lagu ogaado sharcigaa la horgeynaya dowladda Soomaaliyeedna waxay lamaane qaadaysaa dadka xabsiyada ku jiro inay xuquuqdoodan helaan oo meeshii looga tirigalayna lagu haayo cid kalena mar damba aan xabsi ka baxsanin lamaane qaadkaasaan haynaa waan ku dadaalaynaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba in aan noqono cid alla ciddii sharciga la geeyey oo lasoo xukumay ilaa oo waqtigooda ka dhammaado fursad u helin inay sharcigaas ay ka baxsadaan marka runtii taliyaasha aad baan ugu adkaynay inay shaqadooda qabsadaan waxayna diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan waxaana rajaynaynaa insha allahu xabsiyada dalka inay noqdaan xabsiya caalami ah sidaad u aragteen xabsiga weyn oo MBCC loo yaqaano oo ex-control ka dhisan xabsiyada kale dalkana inaan hagaajino waxaa la farayaa saraakiisha meel kasta ay joogaan dalka in xabsiyada dalka waajibkooda ka gutaan way garanayaan waajibkooda xuquuqda maxaabiistan ilaaliyaan maxaabiistasna ay hayaan oo ilaa oo xukunkooda ka dhammaado oo sharciga la horgeeyo sidii sharciga qabo marka aad iyo aad ay ugu bogaadinaya shaqada ay qabteen meelaha yaryar oo dhamana oo qaldaadka ka jirana waxaan rajaynaynaa insha allahu xukuumad ahaan iyo siyaasad ahaanba inaan u saxno waxyaabihii shaqooyinkooda u fududayn lahayn oo saraakiisha insha allahu inaan ku caawino marka dib u dhiska dalka iyo horumarka dalkana inay ka qayb qaataan maadaama ciidamada asluubta ay yihiin ciidankii afaraad oo ciidankii saddexaad oo maaragtay ciidamada qalabka sida ayagoo waliba loo baahan yahay markasta ammaanka guud dalkana ay u taagnaadaan khaas ahaan ammaanka garsoorka dalka oo ay ku lamaanan yihiin marka aad baan idinku mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo intii kale ka qayb qaatay